wuxuu nabigu inoo sheegayaa macaasida iyo dambiyada inaysan ahayn cadaabkeedu wax badan qofku inuu sameeyo khasab ma hal cuquuba ayaa laga yaabaa in cuquubada ilaahay kuugu sallida hal macsi oo ka dhacda dakhalat imra'atun an-nar fi hirra ayaa nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam haweenay baa naar gashay waxayna naarta ku gashay bahashaan hirrada la yiraahdo mukulaasha ah ama bisada mid la yiraahdaba sababteed bay naar gashay rabadatha way dabartay meel bay ku xirtay falam tut'imha ma aynan quudinin walam tad'aha ta'kulu min khashash al-ard dhulkeedaas xasharaadka iska qaraabato ha iska cuntee kama aynan tagin oo iskama aynan daynin hirrada sababteed ayaa loo naaray oo cadaab ay u gashay bal nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wa sallam kalimaadka aan ku hadlayna qaar ka mid ah inaynu aan ku halaagsamayno oo cadaabka aan ugu shalwanayno wax ka fogaansha badan qorax ka soo bax iyo qorax u dhac nabigu wuxuu yiri innal abda la yatakallamu bil kalima qofku wuxuu ku hadlayaa kalimad ma yatabayanu fiha ma hubsanayo kalimadan khatarta ay leedahay yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal-maghrib naarta ayuu sababteedu ugu simbiriraxanaya waana ku soconaya wax iskaga fog qorax ka soo bax iyo qorax u dhac kelimada ka soo baxaysa ayaa laga yaabaa cadaab inay ku waajibiso adigu aadan waxba u aabayeelahay macaasida iyo dambiyada lama yaraysto الإمام الأوزاعي وحو أرنشري لا تنظر إلى صغر المعصية دنبغا يرانتي سهفيرين دنبغا إنو يري هاي هفيرين ولكن انظر إلى عظمة من عصيت الله آد عاصي وين كيسي عظمتي سفيري الله آد عاصي ملعصو دنبغاني ويري هاي كفيري معاصيدو دادك وحي دحال سيسا دل إيا ضعيف نمو عزي شرفنا وحالقو قال طاعة إلهي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هل كاسا عزي شرفته يا الله عزي أولا الله هيسته ملكنا لقبر رادي وحو النبي يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري دلي يلي دنان وحال يالي عدة أمر كيغا خلافته أيالله قفك النبي راعه ونبي أمر كيسا هايسته ونبي طاعدي ساطيعه وكتابك يا السنة كودك وعزيز ولو كان وحده كل يسبح دور بها أحد ما شاء وجهه كل يسبح أحد وقف عزي يا شرف لوي هادو خلافه سكسته وبطنا ده بون شوي وحقي ما إليهن